munaasabadani oo ka qabsoontay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa ahayd mid lagu daahfurayay horumarin cusub oo dhinaca maalgelinta oo la siin doono ganacsatada yaryar ee suuqyada wax ku iibiya si ganacsigooda loogu horumariyo. waxaa daafurka barnaamijkaasi ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday dawladda, Banka Dhexe ee Somaliland, mas'uuliyiin ka socday Premier Bank iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday shirkadda Dahabshiil Group iyo ganacsato tiro badan. barnaamijku ay si weyn uga dhex muuqatay shirkadda Dahabshiil Group ayaa waxa khudbad dhiirigelinaysa ganacsatada doonaysa inay wax soo saar ka sameeyaan. barnaamijkana ugu bushaareeyay ganacsatada yaryar ee u baahan taageerada ka jeediyay maamulaha guud ee Dahabshiil Group Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale. cidda lacagta loo soo celinaysa dumarka ugu badan, cidda lacagta loo soo xawilo dumarka ugu badan. marka inaan dumarka encourage gareyno oo waliba aan rules-keega u bedelno oo aan u fududeyno oo aan khidmadda ka sii dhino waa balan qaadin hadii la ka dhigo. munaasabada kadib ayaa waxa si gaar ah telefishinka Universal ula hadlay Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale, maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil, isagoo ka warbixiyay munaasabadaasi iyo barnaamijkana ay daafureen. waxaan uu sheegay in Dahabshiil ay markasta diyaar u tahay raali gelinta macaamiishooda iyo dardargelinta ganacsatada. walaal runtii sidaad u sheegtay barnaamijkan maanta halkan lagu daahfuray waa barnaamij dhowr sano laga shaqaynayay. muhiimadiisuna waxa weeyaan in dadka ganacsatada waliba ganacsatada yaryar suuqa wax ku iibiya dumarka u badan ee dhalinyarada waligood aan baac mushtari gelin ay ku jiraan in la dhiirigeliyo, in la siiyo maaragtay kuwa shuruudaha bangiyada ka soo baxa in lacag deyna la siiyo inay iska soo celiyaan marka mid kale loogu celiyo si taariikh ay qofku u yeesho oo bangiyada ugu yeesho. marka anagoo dhannahay Dahabshiil Group oo Dahabshiil Bank ku jiro oo Dahab Mobile Payment ku jirto, dhammaan waxaan isku dayaynaa inaanu dadka ganacsiga yaryar ama ganacsiga dhexe ama kuwa waaweyn inaanu mid walba u shaqeyno oo aan qiimo jaban ugu shaqeyno, dadaal loogu sameeyno. waana ku faraxsanahay dhammaan dadka Soomaaliyeed adduunka ku kala nool inay Dahabshiil mar walba isticmaalaan. kuwa cusubna waa dhiirigelinaynaa, qaybteedana waan ka soo baxaynaa waxaan ku sii dari karno mar walba haddii alla ka dhigo. Cabdirashiid, maxay ku kala duwan yihiin maalgashiyadii hore aad u sameey jirteen ganacsatada yaryar iyo kan aad maanta daahfuraysaa? wuxuu ku kala duwan yahay runtii kan wuxuu culays ka saarayaa baac mushtariga yaryar ee dumarka u badan laga yaabo inay taariikh hore lahayn, laga yaabo inay lacag badan adduunka ka helin, ku nool baac mushtariga yaryar ama suuqa wax ku iibiya ama saribada wax ku iibiya ama maaragtay taariikh badan caynkaas lahayn. saas awgeed ayaa Dahabshiil Bank qaybta microfinance-ka iyo qaybaha kala duwan mar walba waxay doonayaan inay gaaraan dadka wadanka dhaqaalihiisuna ay ku aasaasan yihiin noloshoodu. hadduu xabxab iibinayo, hadduu muus iibinayo, hadduu maango iibinayo, hadday khudrad iibinayaan ama beeranayaan, inaan mar walba culays ka saaro. waayo wadankeena u baahan la hormariyo, cidina ma doonayaan wadan kale u dhoofaan oo ay u tahriibaan. waxaan doonaynaa wadankooda u soo tahriibaan, halkan shaqo ka abuuraan. kii daacada ee dadaalaya Dahabshiil ula shaqeynaya haddii alla ka dhigo. Waciid Duruus Cabdillah Ismaaciil Beershiya, telefishinka caalamiga ah ee Universal, Hargeysa.